السلام عليكم سود وهذا صاحب يال مقال كان وحلقة دي شناد ميرع بودكاست يتحني إنه سعودية عسرية بوكي أهدن سهن تحني إنما أنت حلقة دي سعوكو بلاب ميساقي سدان نين أيا وحو يحيى بن خالد البرمكي كويري يحيو أديق أيا أحنف كدلقات بدن أديق أيا أحنف كدلقات بدن معاوينا كمرتب بدن عبد المالك ابن مروان كقوان أذك عمر بن عبد العزيز كعدالة بدن يحيى ابن خالد البرمكي أيا وحو كجوابي عمير أو أدونك أحنف أيا إغد القاد بدن سرحون أو قراغة معاوية أيا إغم مرتب بدن سعيسعة أو تليها بوليسكي عبد المالك ابن مروان أيا إغقوان أذك مصحم oo xoghayaha khaaska ah ee Umar bin Abdul Aziz ee iga cadaalad badan yahay cidna iguma soo dhawaato yiri ama qofna iguma soo dhawaado yiri inuu iigeeyo maqaam ka sareeya maqaamka aan mudanahay haddaba maxaa cashiran ka qaadanayna qisadan cashirka koowaad Darwin buuggiisa The Origin of Species wuxuu ku qorayaa jiritaanka ma helo qofka xoog weyn cidda xoog weyn ma hesho ee jiritaanka waxa helo qofka waayaha la jaan qaadi kara ayaa jiritaanka hela wuxuu leeyahay qoraaga inkastoo buugan The Origin of Species uu antarabaqash badan hadal badan uu ku shubay oo bila micno ah Darwin uu ku shubay laakiin kalimadan waa kalimad mug weyn leh weeyri jiritaanka waxa helo ma helo qofka xoog badan cidda xoog badan jiritaanka meesha waxa jiritaanka helo qofka waayaha la jaan qaadi karo cashirka labaad waxa jira dawarsadayaal aan ahayn ama tuugsadayaal aan ahayn dadka tuugsada ama dawarsada ee taqaan ee maryaha jeexjeexan ee diifta isku muujiya ee wadooyinka taagan kuwa aan ahayn jiro waxa jira dawarsadayaal abwaana waxa jira dawarsadayaal muftiyaal ah waxa jiro dawarsadayaal kanaalo leh kuwa telefishinka ka soo muuqdo kuwa shaqaale ah oo ku dawarsado maamulka shaqadooda dawarsadayaashan ma hoorsadaan gacmahooda ee waxay hoorsadaan biyaha wajigooda shilimaad xun oo yar oo liitay waxay ku bedeshaan sharafkooda iyo cirdigooda waxa laga yaabaa maanta dhan inuu soo fadhiyo kanaalkan YouTube inuu soo fadhiyo ama Facebook uu soo fadhiyo inuu cid kala caayo dacaayadeeyo aflagaadeeyo sharafkooda ku tunto intaas oo dhanna uu ku bedelanayo dhowr shilin oo muuqaalkaas ka helo views yar ama like ama in la share gareey intaas uu ku bedelanayo cashirka saddexaad qofka markuu kula joogo dadka kala maamuuskooda duudsiyo qofkaas iska jir qofkaas waxay u badan tahay in adigana mar uu ku duudsiin doono uu ku dawa marin doono maamuuskaaga qiyamkaaga iyo wax kasto oo mudan tahay oo qabat inuu ku duudsiin doono ay u badan tahay waa qof qabatimaya la dhihi karaa inuu duudsiyo dadka xaqooda uu duudsiyo dididkooda uu duudsiyo mudnaanshahooda iyo sharafkooda iyo maamuuskooda cashirka afaraad ee aan sheekadan ka qaadanayna dadka maamuus leeyda ah ee maqaamka leh uma baahna inay dadka kale ka liitaan inay dadka kale liitaan oo hoos tagaan uma baahno si dayaxooda u iftiimo uma baahna dhammaan xidigaha inay damiyaan si dayaxooda u iftiimo uma baahnid inaad yeelatid ama aad ka saramartid Umar bin Abdul Aziz uma baahnid inaad axnaf dulqaad kaga badnaatid uma baahnid inaad Muawiya ka murti badnaatid uma baahnid inaad cid walba aad kaga sareysid dhinac walba noloshu tartan ma aha saadaraadee dadka maamuusleyda ah uma baahan inay dadka kale oo dhan liitaan oo xidigahooda damaan si uu dayaxooda u iftiimo cashirka shanaad wax ceeb ah kuma jirto inaad xiriir wanaagsan aad la yeelatid dadka maamuusleyda ah inaad xiriir wanaagsan la yeelatid dadka meeqaamka leh bulshada laga dhex yaqaan sumcadda leh inaad madaxweynaha qaranka ah xiriir la yeelatid wasiir inaad xiriir la yeelatid xildhibaan ama ganacsade weyn wax mushkilada kuma jirto inaad xiriir wanaagsan dadka oo dhan la yeelatid laakiin waxa ceeb iyo wax xun oo laga yaqshaqsooda arin liita waxa ah inaad dadka kale sharafkooda ka dhigatid
doon aa ku gudubtid inaad dadka kale sharafkooda aa ka dhigatid sida kaar aad marsanaysa mashiin camal inaad ka dhigatid oo ka dhigatid xarigii ama salaankii aad ku gaari lahayd meeqaamka aad kaga doonayso dadkaas meeqaamka leh. cashirka 6 meel kasta oo uu maamul ka jiro lagama waayayo cidna camleeya, cidna naabayaal ah, dad daba dhilif ah, dad dadka kaleeta sharafkooda u adeegsado in ay ayaga meeqaam ku dhistaan, dad dadka kaleeta biyahooda wejiga u adeegsado inay ayaga meel fog ku gaaraan, dad kaleeto sumcaddooda u adeegsada inay ayaga sumcad helaan. meel kasta oo nidaam ku jiro, meel kasta oo nidaam ka jira caalamkan ama uu ka jiray mar walba waxaa jira dad maamuusleydaas ka ag dhowaado ayagoo xoqanaya dadka kale sharafkooda, cirdigooda, dadka kaleeto waxqabadkooda, dadka kaleetana liidayaan oo dhulka dhigaya. intaan ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta oo ahaa xalqadii 5 ee Mawrac Podcast. muuqaal dambe saayo nabadgelyo.